وهاجاك داود يالكو soo dhawaada warkii oo fidsan waxaana warkan idin la socodsiinaya anigoo ayaan la Xuseen Cabdi aan ku bilaabay dawladda wadanka Kenya oo adeegsanaysa ciidamada militariga ayaa wada qorshe ay darbi kaga dhisayso xadka u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya iyadoo taariikh ahaan labada wadan uu jiro muran u dhaxeeya oo xagga gobolka Soomaalida waqooyiga bari ee wadanka Kenya oo kamid ah shantii Soomaaliyeed boqolaal dadweynaha oo ku nool magaalada Balad Xaawo ayaa isugu soo baxay magaaladaasi iyagoo ka cabanaya isla markaana sheegaya in ciidamada wadanka Kenya ay dhismayaal burburiyeen kamid ah magaalada Balad Xaawo isla markaana ay doonayaan inay halkaasi ka dhisaan darbiga ay sheeganayso dawladda wadanka Kenya warbixinta warkaasi oo faahfaahsan waxa inoo haya Maxamed Cabdikariin Macallim badbax balaaran oo looga soo horjeeda halka ay Kenya ka bilaawayso dhismaha darbiga ay ku xiranayso xadkeeda ayaa waxa uu ka dhacay maanta degmada Balad Xaawo ee gobolka Gedo halka ay Kenya oo calaamaysatay dhisida darbiga ayaa waxa uu gudaha u galaya Balad Xaawo waxaana bixi doona hadii ay dhacdo in la dhiso darbigan guryo badan oo ku yaala Balad Xaawo oo ay ka mid yihiin baqaarihii hore ee xilligii dawladda dhexe iyo kastamkii Balad Xaawo ee lagu shaqeyn jiray xilligii dawladda dhexe ee Soomaaliya bismillaahir rahmaanir rahiim goobtan aan taaganahay waxa weeye xaduudkii saddex geesoodka ahaa Itoobiya Soomaaliya Kenya kadibna dawladda Kenya ee qardaysay sidaad u aragtaanba oo ay doonayso inay darbi mariso goobta aan taaganahay xilligan hadda aan ku suganahay waa dhulkii Soomaaliyeed ee degmada Balad Xaawo kana mid ahaa beerihii roobka iyo kuwii webiga ahaa marka hore dawladda federaalka waxaan leeyahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud madaxweyne gudoomiyaha baarlamaanka iyo golaha xukuumadda uu hogaaminayo Cumar Cabdirashiid waxaan leeyahay degmada Balad Xaawo ee gobolka Gedo oo xaduudka Kenya iyo Itoobiya isugu yimaadaan miyaynan ahayn dad Soomaaliyeed oo u dhashay Soomaali oo dhul Soomaaliyeed miyaynan ahayn muwaadiniin miyaynan ahayn kuwa shalay liin dhaariyay dalka liin dhaariyay dadka liin dhaariyay Soomaha muddo 3 cisho ayaan barnaamijnaa sidoo kale waxaan u baaqayaa maamul goboleedka Jubbaland mashquul iyo waxa weeye adduunyo kismaayo kali kama jirto magacaad wadataan oo u dhaarateen oo qaadateen waa saddexda gobol ee Jubbooyinka waxa ugu dambeeyay gobolka Gada degmada Balad Xaawo waa cirifka ugu dambeeyay waa la boobayaa waxaad sheeganaysaan madaxweyne ku xigeen waxaad ka shaqeynaysaan waxaan leeyahay muddo 7 cisho yaanu baaq in soo jeedinayna mar telefoon ku hadalnay maran media ka hadal Jubbaland hadii ay gobolka Gado ka rabto oo ay danaynaysa waa in ay ka hadasho Kenya dhulgoobka ay ku وهاجاك warbixintaasi waxa magaalada Balad Xaawo nooga soo diray wariyahana Maxamed Cabdikariin Macallim